waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo si wanaagsan loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo awdiin mas'uuliyiin iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan isla markaana ujeedadeedu ahayd laguna xusayay maalinta micraajka nabigeennii suubanaa naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatay ee samada loo dheelmiyay kuna beegan tahay maanta 27 bisha 7/1438 sanadka islaamka munaasabadaasi oo soo qabanqaabiyay xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo isagu munaasabadaha noocan oo kala ah had iyo jeer soo agaasima ayaa waxa ugu horreynba halkaasi munaasabada ka soo jeediyay siiradii nabigeeni iyo waliba maalintani fadliga ay leedahay ardayda wado u heli maysid kuwii ibliiska lagu yiri adoomaha ilaahay lagu daro adoonnimada ku sifaysan isqaadqaadka lahayn nabigooda jecel dhulka isdhigay ilaahay naga dhigan ilaahay nidiisanayna ilaahay inaan waxba ismoodi waxba ma yihiin ilaahay inaan wax ismoodi munaasabadan khayrka badan ee taariikhiga ah ee mucjisadii nabi Muhammad kamida ayaynu maanta halkan ku xusaynaa inaynu ku soo celceshano sanadbo sanawiya inaynu ugu soo celceshano mucjisaadkii nabigeenu la mariyay iimaankeena ku kordhaya ubadkeena ku barbaaraya islaamnimadeena ay noogu siyaadaysa sababtu waa maxay maalinta nabiga la dheelmiyay dadkii joogay Maka qaarna waa diideen qaarna waa rumeeyeen kuwii rumeeyeen raadkoodii haynayna waxaan ku celceshanaynaa wuxuu Abu Bakar rumeeyay maalinta iyo rumaysana sidoo kale qaar ka tirsan culimada ka socotay wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo waliba culimada diinkii kale iyo marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadani ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyay kuna saabsan siiradii nabigeeni naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee xambaarsana mucjizaadka faraha badan leh oo ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigiisa Muhammad alayhi salatu wa salaam aw dheelmiyay oo intuu كبيرابي ليلنكيسا مكة إلى قدس إلى ما فوق 7 سماوات ولا ليال سيدي وحلبانك إن شيخ أحمد ياسين على أيانله وإنه شيء قصة وقت قيد على عام الحسني أكتد بها هاي وحتى دريني كرتا إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا إنه وطلق arrintan laylatul isra wal mi'raj inuu ku samirsiiyo oo kaga samirsiiyo dibka soo maray rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulka dib way ka soo gaadhay waa tudaayif rasuulku hijrooday waa tagaarada ka daayif rasuulka aad u soo dhibeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam deetana ilaahay uu aad u bariyay ilaahayow hadii aad ii careysan tahayna wax guuriya adduunka ima taalo hadii aanad ii careysnayna wax kasto ay gaadho qaalibaas ku ahay ilaahay uu cadeeyay subhanahu wa ta'ala oo rasuulka ku yiri ma wada'aka rabbuka wa ma qala ilaahay subhanahu wa ta'ala kaama tagin kuumano cadhoonin ba rasuulka lagu yiri sallallahu alayhi wasallam Abdirashiid Abdi Wahab Hussein Universal TV Hargeysa.